بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa degmada Waabari xaafada Horseed iyo October waxaan rabnaa insha Allah tacaala labadaas xaafadood inaan ka bilowno wada furis saaka waxaan la kulanay dadka wadadan degan oo aan kala tashanay oo aan wacyigelin kaga sameeyay muhiimadda ay leedahay furista wadada cabasho badan kadib markii ay imaatay maamul ahaan waxaan go'aansanay in aan bilowno wada furista aad iyo aad waa barnaamij aad iyo aad u adag waa barnaamij adkaysi badan degmada uga baahan iyo dhabar adeeg sababtoo ay waxay saameynaysaa dad kala duwan ay saameynaysaa degmada Waabari maadaama wadooyinkeeda ay yar yihiin ayaa waxa jiro in dadkii ay boosaneerooyinka ka qotaan banaanka dad badan oo dan yar ah oo duruufo haysta ayaa waxay keenaysaa boosaneerkoodii inay banaanka ka qodaan laakiin arintan waxay noqotay maamulka caqabad ku soo noqotay kadib habeen dhaweed markuu dab ka kacay waaxda Horseed ayaa waxaan go'aansanay in aan la sii fiirsan karin maadaama dabdamisyadii meel ay galaan la waayay oo ay noqotay dabkii in gacanta lagu damiyo biyihiisa insha Allah tacaala wiiga soo socdo maalinta bisha ay 6 tahay waxaan bilaabeynaa wadadan ayaan u bilaabi doonaa wadadan waa wadada ugu roon ee degmada Waabari xirnaanshaha marka laga hadlaayo oo aan rabno inaan ka bilowno hadaad saa u fiirisaan wadada ilaa iyo meesha ugu dambayso way xiran tahay hadeer inta kalena boosaneerooyinka iyo caqabad ku ay sababtoo gaadiidkan ma soo mari karo sidaas darteed marka waxaan ka codsanaynaa shacabka reer Waabari in arintan ay nagala qayb qaataan nala garab galaan oo boosaneerkooda reerkii banaanka uga dhisan yahay waxaan u sameynaynaa in wax lacag aan laga qaadaynin in ay dhistaan dib u dhistaan oo boosaneerkaas ay adkeeyaan reerkii rabo boosaneerka inay gudaha galiyaanna aad ayaan ugu baraarujinaynaa ugu soo dhaweynaynaa wax dhismo lacag ah oo ay bixin doonaan ma jiraan ciidanka ilaalada deegaanka iyo dad deegaanka ka tirsanaya halkan ila joogo ciidanka ilaalada deegaanka waan la hadlay wax dhismo oo ay ku bixin doonaan dadka degan wadadan ay qusayso arintan dhismaha ma jiraan sidaas darteed waxaan rabnaa inaan barnaamijkaas wada furista degmada Waabari aan ka dardargelino wada furista waxay naga caawinaysaa amniga waxay naga caawinaysaa nadaafadda waxay naga caawinaysaa soo celinta bilicda degmada sidoo kale waxay naga caawinaysaa in haddii dhibaato dhacdo gargaar degdeg ah ee degmada iskugu soo gurman karto waxaan rajaynaynaa wada furistan inay noogu xigaan in wadooyinka la dhiso oo wadooyinka xaafadaha dhex marayo la saaro laamiye yar iyo interlock hadba tabarta dadka deegaankaas degan iyo ganacsatada reer Waabari ay tahay waxa naga go'an maamul ahaan inaan aragno Waabari oo wada interlock ama se laami wada saaray si aan u bilowno maalinba meel ay ka bilaabataan waxaan rabnaa inaan ka bilowno furista wadada gudoomiyaha mahadsan waxaan taaganahay sida noo sheegtay waaxda Horseed ku egtahay in wadada loo furo ama waxa kalena waa ku daba jiraan waaxda Horseed wada kamid ah ayaan ku bilownay dhammaan waxyaha dhan aan gaarayna wadadan waxaan rabnaa waa tii kow aan ku bilaabayna furista wadada marka shacabka deegaanka kulan aan la sameysay saaka noo sheegtay maxaa kala kulantay waxaan kala kulnay intoodii badnaa shacabku way soo dhaweeyeen way jireen shakhsiyaad cabasho ka keenay xagga boosaneerka markay noqoto sidoo kale waxay cabasho ka keeneen haddii wadadan la furo in gaariyaasha ay xawli ku soo mari doonaan oo ciyaalkooda ay banaanka ugu ciyaaraan insha Allah tacaala waxaan sameyn doonaa in arintaas la ilaaliyo wadooyinka la furo inaysan gaariyaashu aysan xawli ku soo marin in loo sameeyo booliska inay taagnaadaan ama se traafikada ay joogaan wadooyinkan la furo oo ay kaga faa'iideystaan shacabka degan gobolka Banaadir degmooyinka qaar kamid ah waxay maamulada ku eedeeyaan in markii wada saan camal loo furay qaybna ay sameeyaan qaybna ay ka tagaan arintaas maxaad ka leedahay arintaas waa cadaalad darro oo waa run oo in wada qaarna la furo wadan laga tago ma dhici karto laakiin hadba sida dadka ay u degan yihiin u kala tabar yar yihiin ayaan waxaan rajaynaynaa in meelaha ay dhibaatada weyn aysan ka jirin oo laakiin wadada la furi karo inaan ka bilowno dhibaatooyinka waaweynka ee dumiska meelaha ahna waa ku xijinaynaa sababtoo inta boosaneer banaanka ku yaala la yiri korkaaga dhis oo adke lagama tagi karo qof dabaq laamiga ka dhex dhista marka fartiin ayaan u direynaa dhammaan shacabka Waabari degan haddii jid aad ogtahay sharci darro inaad ku jirto oo wadada dhexdeeda aad ka dhisatay sar dabaq sartaas way dumaysaa sababtoo dadka reer Waabari waxay u baahan yihiin in si sinaan oo cadaalad loogu shaqeeyo ugu dambeyn su'aasha ku weydiinay markaan xuraansi sameeyay dadka ku nool gobolka Banaadir waxay si gooni ah u sheegaan degmooyinka hablaha ee gudoomiyaha ka kuwa kale oo maaragtay ragga gudoomiyaha ka way ka duwan yihiin arintaas waxa loo jeedaa والله ما قرن كرايو لكن سو وحن أمسنا هي وليو عد
aniga ayaa waxaan u maleynayaa inaan dumar kaga jiro inta kalena waa rag waana rag aad u dadaal badan degmooyinka weliyo cadde howlwadaag howlwadaag iyo Hodan iyo Xamar Jajab kuleba dhaqdhaqaaq badan ay ka socdo dhammaan asxaabta kale ee aan gudoomiyaasha isla nahayna kulligood doon bay wada saaran yihiin marka arintaas waxaan leeyahay dhammaan 17 degmo arintaas way ka sameeyeen dadaalka laakiin dadaalkii ayaa lagu kala duwan yahay oo qof walba waxa jiro meel uu culayska geliyo culayska gaar ahaan uu sii saaro culayska haysto degmada waxayna ku xiran tahay baahida degmadaas ka jirto